Turkiya sida caadiga ah waxaa lagu yaraa Jamhuuriyadda Turkiya. Caasimaddu waa Ankara. Tirada dadku waa 80 milyan. Boqolkiiba 99 waa Muslimiin. Baaxadda dhulkuna waa 783,000 oo kiiloomitir iskuweer ah. Turkiya waxay dhacdaa inta u dhaxaysa labada qaarad ee Aasiya iyo Yurub, goob istiraatiiji ah oo ay 3 badood ku teedsan yihiin. Waqooyiga waxaa ka xiga Badda Madow, koonfurtana waxaa ka xiga Badda Dhexe ee Cad, galbeedkana waxaa ka xiga Badda Aegean, waqooyi galbeedna waxaa ka xiga Badda Marmara. Turkiya waxay xuduud la leedahay 8 dal. Dhanka bari waxay xuduud kala leedahay Iiraan, Azerbaijan, Armenia iyo Georgia. Dhanka galbeedna waxay xuduud kala leedahay Bulgaria iyo Gariiga. Dhanka koonfureedna waxay xuduud kala leedahay Suuriya iyo Ciraaq. waa wadan leh taariikh aad u fog oo aan hal barnaamij iyo tobanba lagu soo koobi karin. Turkiya waxaa ku yaala tareen dhulka hoostiisa mara, kan ugu horeeyay caalamka marka laga soo tago midka ku yaala London ee caanka ah. Turkiya waxay bilowday isticmaalka tareenkan dhulka hoostiisa mara 17 Janaayo 1875. Turkiya waa dawladda ugu horeysay ee masjid ka dhista dhulka hoostiisa. Masjidkan wuxuu ku yaalaa Istanbul, magaciisuna waa Zanjaklar. Turkiya waxaa ku yaala qiyaastii 82,693 masjid, taasoo ka dhigaysa wadanka toddobaad ee ugu masaajida badan caalamka, waxaana ka horeeya kaliya wadamada Indonesia, India, Bangladesh, Pakistan, Masar iyo Sacuudi Carabiya. inta ugu badan masaajidan waxay ku yaalaan magaalada Istanbul maadaama ay tahay magaalo aad u mashquul badan. Masaajidan waxaa ugu caansan masjidka lagu magacaabo Masjidka Buluuga, kaasoo la dhisay intii u dhaxaysay sanadadii 1609 ilaa 1616. wax soo saarka dalka Turkiga waxaa lagu qiyaasay 851 bilyan oo dollar. qofkii waxaa soo gala sanadkii dakhli lagu qiyaasay 12,000 oo dollar. 3,200,000 oo qof qiyaastii ayaa dalxiis ugu yimid Turkiga sanadii 2017. tirada shirkadaha shisheeye ee ku sugan gudaha Turkiga waxay gaarayaan 58,000 oo shirkadood. Turkiga wuxuu caan ku yahay soo saaridda miraha loo yaqaan bunduqa, kaasoo cunsur aasaasi u ah samaynta shukulaatada. waxayna shirkadaha caalamku tartan xoogan u galaan helidda mirahan. luqadda Turkiga waa mid aad u sahlan barashadeeda, gaar ahaan dadka ku hadla luqadda Carabiga, waxaana sabab u ah xaddi erayo aad u badan oo Carabi ah oo ku jira luqadda Turkiga. luqadda Turkiga ma ahayn mid la qoro, waxay ahayd mid lagu hadlo oo kaliya. sidoo kale xilli ay soo martay oo luqadda Turkigu ay ahayd mid lagu qoro xuruuf Carabi ah, sida midda Soomaaliga ah ee u soo martayba.